السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ودكتور عبد المنعم وحنا هاي دكتور كحنون نضد الدمر كأيود المضى وحن كهول قلا إسبيتال كتخصصي جاء سومالي السودانيس حرونت وين مقالة مقدشو. اليوم حول يكون محور النقاش بتاعنا حول التهابات الكبد الفيروسية، وفي العموم نحن حنتكلم عن ناخذ فكرة iyadoo ay soo dhowdahay xuska maalinta caalamiga ah ee cagaarshowga waxaan maanta halkan idinkaga soo gudbinayaa fariin wacyigelin ah oo la xiriirta hooyada uurka leh iyo sida ay iyada iyo cunuga ay sido u saameyn karo xanuunka iyo siyaabaha loogu hortago. ده مهم جدا جدا لأنه معظم الحوامل المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي بي هم على درجة عالية من المخاطر في نقل العدوى hooyooyinka uurka leh ee qaba hepatitis B waxay khatar sare ugu jiraan inay fayraska u gudbiyaan ilmahooda inta lagu jiro uurka ama dhalmada. sidaas darteed baaritaanka joogtada ah inta lagu jiro uurka waa muhiim si loo ogaado xanuunka oo wax loogu qabto waqtigiisa. وهذا الكبد الفيروسي الموضوع الحوار اليوم ينتقل عن طريق الدم، النقل عن طريق الدم اللي هو إما عن طريق نقل الدم المباشر أو عن طريق ama hepatitis B wuxuu ku faafaa dhiig lagu shubo ama qalab caafimaad oo wasakhaysan galmo la yeesho qof qaba fayraska hooyo u gudbisa ilmihii ay sido inta lagu jiro uurka ama dhalmada. والوقاية منه يعني هي ممكنة وواجبة كمان في المقام الأول. ليه؟ لأنه الحد من انتشار هذا المرض kahortaga waa suuragal inkastoo ay daweyntu ay adkaan karto haddana kahortag waa mid la heli karo. hubinta badqabka qalabka loo isticmaalo ee caafimaadka, wacyigelinta bulshada si loo yareeyo caadooyinka khatarta leh, talaalka cagaarshowga B. وطبعا في حالة الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي بالنسبة للحامل أصلا طريقة الولادة بالعملية القيصرية لأنها تقلل من إمكانية انتشار الفيروس. hooyada uu saameeyay fayraska cagaarshowga qaliinka dhalmada ee caloosha lagu furo cesarean ayaa laga yaabaa inuu yareeyo gudbinta cudurka. sidoo kale talaalka ilmaha markuu dhasho kadib waa hab waxtar leh si loogu hortago fayraska ama loo yareeyo halista. هو يعني مسؤولية كل القطاعات، القطاع المجتمع، قطاع الصحة، الاهتمام على مستوى الدولة اللي هو بتوفير اللقاحات، بتوفير kordhinta wacyiga caafimaadka, dhiirigelinta baaritaanada iyo talaalka waa hab wax ku ool ah oo lagu yareeyo tirada dadka cudurka qaba. waana mas'uuliyad caam ah oo ay wada leeyihiin bulshada qaybaheeda kala duwan. mahadsanidin. ka hortagu wuxuu ka fiican yahay daaweynta.